Sannadii 1989 bartamaha dalka Ruushka gaar ahaan kaymaha Siberia xilli ay saacadu ahayd 2:00 habeenimo jawiguna uu ahaa mid aad u degan oo baraf da'ayay. Haddaba waqtigaa waxaa jiray tareen dhex marayay kaymaha Siberia. Tareenkaas aad ayuu u rarnaa waxa uuna siday in ka badan 70 gaari. Haddaba waxa uu dhex socday kayntan aadka u madow. Jawiguna aad ayuu deganaa. Wax kastana waxay u muuqdeen caadi. Haddaba si kadis ah ayaa kabtanka tareenku waxa uu meel aad iyo aad u fog ka arkay wax si uu uga yaabiyay oo yaalla wadada tareenka dhexdeeda. Kabtankii waa uu istaajiye waxa uuna bilaabay inuu tareenka si tartiib ah u istaajiyo. Aad ayuuna ugu soo dhawaaday heer uu ku sigtay inuu jiro oo tareenka ayuu afka u saaray. Haddaba darawalkii tareenka waxa uu go'aansaday in uu dawo oo uu soo eego waxa uu yahay shayga wadada tareenka dhex yaalla. Haddaba inta aanu degin waxa uu yeeray walaalkii oo ahaa caawihiisa ahaana qofka kaliya ee tareenka la saarnaa. Waxa uuna ku yiri ilaali tareenka anigana kor igala soco. Kabtankii waa uu soo degay. Waxa uuna horay u soo qaatay qorigiisa iyo toosh. Waxa uu bilaabay inuu si tartiib ah ugu dhawaado shaygaas oo uu eego. Haddaba markii uu arkay aad ayuu u naxay heer uu isbedelay wejigiisu. Waxaana ka dhacay tooshkii uu watay naxdinta uu naxay darteed. Wuuna ishayn kari waayay aad ayuuna u qaybiyay. Caawiyihii kabtanku waa uu arkaa waxa uu kabtanku samaynayo. Wuxuuna si halhaleel ah uga soo degay tareenkii si uu u ogaado waxa ka argagixiyay kabtanka. Haddaba caawiyihiina waxa uu galay isla xaaladii uu kabtanku ku jiray. Waa ayna qayliyeen labadoodiiba. Waxayna isku dareen qaylo xad dhaaf ah. Haddaba waxaa jirtay tuulo aad u yar oo aad ugu dhow wadada tareenka laguna magacaabo Kaysnet. Waana tuulo aad u yar oo ka kooban kaliya 24 guri. Dadka tuulada degan shaqadooda waxay ahayd kaliya inay hagaajiyaan wadada tareenka haddii ay tahay dayactir iyo dhismo ahaanba ilaa masaafada ay awoodaan. Haddaba dadkii tuulada deganaa waxa ay ku soo kaceen qaylada labadii nin ee tareenka waday. Waxa ayna soo qaateen faynuusyo iyo hubkoodii si ay u ogaadaan waxa ka jira meeshaas qayladu ka soo baxayso. Waxa ayna soo gaareen tareenkii gaar ahaan meeshii ay labada nin joogeen. Waxa ay arkeen labadii nin oo meel fadhiya aadna u gariiraya cabsina ay u dheedhahay barafkuna uu jirkooda saameeyay. Haddaba dadkii tuulada waxa ay weydiiyeen labadii nin muxuu yahay dhibka idin haysta ee aad saas oo dhan ugu qayliseen. Labadii nin oo gariiraya ayaa ku jawaabay eega halkaas. Haddaba dadkii tuulada waxa ay guda galeen inay eegaan waxa jira oo meesha yaalla. Markii ay arkeen aad iyo aad ayay u naxeen heer dadka qaarkood dib u carareen. Haddaba waxa ay la xiriireen booliiska. waxaana jiray saldhig boolis oo aad ugu dhawaa tuuladan. Waxa uuna u jiray 3 ilaa 5 kiiloomitir. Haddaba booliisku ay soo gaareen goobta ay dhacdadu ka dhacday. Markii ay arkeen booliisku waxa meesha ka dhacay aad iyo aad ayay u argagaxeen. Haddaba saaxiibayaal waxa aad sugaysaan waxa ka yaabay intaas oo qof. Waxa uu ahaa 7 qof jirkoodii oo googo ah. Haddaba booliiskii markay arrinkaas arkeen waxa ay dalbadeen dambibaarayaal. Waxa ayna wareysteen labadii nin ee walaalaha ahaa kuwaasoo tareenka waday. Kabtanka oo ahaa walaalka weyn magaciisuna ahaa Fajin iyo ka labaad oo ahaa walaalka yar magaciisuna ahaa Igor. Waxa ayna sheegeen wax kasta oo ay la kulmeen. Kadib dambibaarayaashii waxa ay bilaabeen inay baaraan shakhsiyadda carruurtan. Haddaba markii la baaray meydadkii waxaa la ogaaday inay yihiin 7 carruur ah oo ay da'doodu tahay 15 jir. Waxa ayna kala ahaayeen 7 carruur ah oo lagu magacaabo Dmitri, Nikolai, Vadim, Oleg, Vyacheslav, Roman iyo Victor. Waxa ayna ka soo jeedeen hal deegaan. Magaalada ay ka soo jeedeenna waxa ay u dhoweyd tuulada Kaysnet. Dhalinyaradana aad ayay isugu dhawaayeen. Waqti kastana waa ay wada socon jireen. Haddaba markii la ogaaday cidda ay yihiin dambibaarayaashu waxa ay u dhaqaaqeen tuuladii ay ka soo jeedeen dhalinyaradaasi. Waxa ayna su'aalo weydiiyeen eheladii carruurta dhalay. Arrinkaa markay arkeen eheladu carruurta ka soo jeedeen aad ayay uga murugoodeen. Haddaba su'aasha koowaad ee ay dambibaarayaashu weydiiyeen waxa ay ahayd maxaa keynta geeya dhammaantood oo ay ka qabanayeen. Waalidiintu waxa ay ugu jawaabeen asbuuc kasta dhammaadkiisa waxa ay aadaan kaymaha si ay waqti ugu soo qaataan. Halkaasna waxa ay ka samaysan jireen teendho yar. Dambibaarayaashu waxa ay weydiiyeen ma siteen boorsooyin ama shandado. Waalidiintii waxa ay ku jawaabeen haa. Dambibaarayaashii aad ayay ula yaabeen arrinkaa sababtoo ah eeriyada laga soo helay meydadka wax boorsooyin ah ama shandada kama agdhoweyn. Haddaba waxay u guda galeen inay wuxuun shandad ah helaan. Dabcan waa ayna heleen laakiin waxa ay ka heleen meel aad uga fog meesha uu dambigu ka dhacay. Waxayna u jidha masaafo dhan 250 mitir. Haddaba arrinkaasi waa uu iska cadyahay inay jariimo xun tahay. Yaa geystay ayay su'aashu noqotay. Haddaba dambibaarayaashu waxa ay guda galeen inay taxliiliyaan waxa ku dhacay carruurta oo ay aragtiyo ka dhiibtaan. Aragtida koowaad waxa ay leedahay carruurtan waxa ku adkaata nolosha. Kadibna waxa ay hal mar go'aansadeen inay isku raacaan keynta oo ay hal mar iswada dilaan. Laakiin waalidiinta carruurta dhalay arrinkaasi waa ay ka biyadiideen oo waxa ay sheegeen inay ahaayeen dad wax bartay. Wax dhib ahna aanay nolosha ka haysan oo wax kasta loo diyaariyay. Aragtida labaad waxa ay sheegaysay in carruurtan ay aad u cabeen khamri ayna seexdeen wadada tareenka kadibna uu tareenku jiiray. Laakiin sidoo kale waalidiintu aragtida waa ay ka biyadiideen waa ayna ka soo horjeesteen oo waxa ay sheegeen inaanay carruurtooda khamriga cabbi jirin da'dooduna ay aad u yarayd. Laakiin waxa iska caddayd
in aragtidaasi aanay soconayn oo carruurta in aad loo dilay ayaa meesha ku caddayd. xitaa wejiyada carruurta waxaa ku yaalay mindiyo. haddaba dambibaarihii kiiskan loo xilsaaray waxa uu ahaa nin caajis badan oo waxa uu rabay inuu kiiska markiiba uu iska xiro. waxa uuna yidhi anigu hal aragti ayaan arkaa, waana aragtida keliya ee shaqaynaysa, xiisena uma qabo in laga hor yimaado. waxa uuna yidhi carruurtu waxa ay soo galeen kaynta markii ay muddo ku jireen waxa ay ku dhex lumeen kayntii. haddaba markii ay muddo aad iyo aad u dheer socdeen waa ay daaleen, kadibna culayska boorsooyinka ayay iska khafiifiyeen oo waa ay iskaga tageen. kadib markii ay in muddo ah sii socdeen waxa ay gaareen waddadii tareenka. halkaas ayay ku gam'een oo waddada tareenka dhexdiisa ayay jiibsadeen. tareenkii ayaana jiiray, laakiin waa ay iska caddayd in aragtidaas xaqiiqda ay ka fog tahay. haddaba kiiskii sidaa ayaa lagu soo xiray. xubnihii carruurtana waxaa lagu wareejiyey ehellodoodii, waa ayna aasteen. qadiyadan in sidaas fudud lagu soo xiro aad bay uga xumaadeen qoysaska carruurta dhalay. waxa ayna bilaabeen inay qoraan waraaqo oo ay u diraan saldhigyada booliska si kiiska dib loogu soo furo. laakiin saldhig kasta markii loo keeno waa uu iska diidayey. saldhigyo meelo kala duwan ku yaala ayayna u geeyeen kiiskii, mid kastaana waa uu iska diiday inuu feelkaa qabto. qadiyadana waxa ay xirneen muddo 2 sano ah. haddaba arrinkaasi waxa uu gubayay qalbiyadii waalidiinta dhala carruurta, xaaladooduna aad ayay u sii xumaanaysay. haddaba waxa ay go'aansadeen inay sameeyaan iskudayagooda ugu dambeeyey, waxayna waraaq u qoreen madaxweynaha ruushka. wakhtigaa ruushka waxaa madaxweyne ka ahaa Boris Yeltsin. haddaba waxa ay u qoreen warqad sheegaysa dhammaan wixii dhacay oo dhan min bilow ilaa dhammaad. arrinka mucjisada ahna waa inay warqaddii gaadha xafiiska madaxweynaha oo si rasmi ah loogu akhriyay warqaddii. haddaba markii uu madaxweynuhu maqlay arrinka waxa uu xaqiijiyey inuu arrinkan dhacay iyo in kale. markii uu xaqiiqsaday madaxweynuhu jiritaanka kiiska waxa uu u xilsaaray ninkii ugu wanaagsanaa dhanka dambibaarista wakhtiga dalka ruushka, waxaana lagu magacaabi jiray Vladimir Kasankov iyo caawiyihiisa Yuri. haddaba markii uu Vladimir akhriyay qadiyaddii waxa ay u safreen isaga iyo saaxiibkii tuulada uu kiisku ka dhacay, gaar ahaanna waxa ay eegeen meeshii uu kiisku ka dhacay, laakiin wax faa'iido ah kama soo helin sababtoo ah wax daliil ah meesha kama muuqan. dhacdadan 2 sano ka hor ayay dhacday oo roobab ayaa da'ay, wax kasta oo raad iyo daliil ahna qariyey. haddaba Vladimir waxa uu ku soo noqday tuuladii ka sanayd ahayd, waxa uuna bilaabay in cid kasta oo tuulada degan uu su'aalo weydiiyo, qofna waa uu la fariistay. haddaba Vladimir wax faa'iido ah oo saa u sii weyn kama helin jawaabihii ay dadka tuuladu siiyeen, laakiin hal xog oo aad u muhiim ah ayuu helay. qaar ka mid ah dadka tuulada ayaa waxa ay sheegeen inay si uun uga shakisan yihiin ninka lagu magacaabo Vasily. dambibaare Vladimir waxa uu weydiiyey maxay tahay sababta aad uga shakisan tihiin Vasily? waa kumana Vasily? Vasily waa nin ka shaqeeya dhismaha iyo dayactirka waddada tareenka. sababta looga shakisan yahayna waa inay isaga iyo walaalkii oo lagu magacaabo Slava ay maalin maalmaha ka mid ah isku gacan qaadeen. walaalkii Slavana maalinta aad ayuu cabsanaa. haddaba Slava oo aad u cadhaysan ayaa yidhi waxa aan kashifayaa inaad ku lug lahayd kiiskii carruurta lagu laayay. Vasily wejigiisa waa uu isbedelay, waxa uuna bilaabay inuu dejiyo walaalkii. haddaba dambibaare Vladimir waxa uu weydiiyey dadkii tuulada aaway haddeer Vladimir, waxa ayna ugu jawaabeen waa uu xiran yahay. sababta loo xirana waxa ay ugu sheegeen inuu dilay walaalkii Slava. arrinka aad ayuu ula yaabay dambibaarihii, sida awgeed isla markiiba waxa uu go'aansaday inuu tago jeelka uu ku xiran yahay Vasily. markii la soo fariisiyey Vasily waxa uu ku yidhi yaa tahay adigu dambibaarihii? dambibaarihii ayaa ku yidhi muhiim maaha inaad ogaato cidda aan ahay, ee waxa muhiim ah inaan ogaado dembiga aad ku kacday. waxa uuna ku yidhi waxaa wanaagsan inaad ii sheegto xog kasta oo aad hayso. Vasily waxa uu yidhi maxaan kuu sheegaa oo aad iga rabtaa? dambibaarihii waxa uu ku yidhi ma taqaanaa 7 carruur ah oo 2 sano ka hor la dilay. Vasily markii uu intaa maqlay wejigiis waa uu isbedelay, waxa uuna yidhi anigu arrinkaa waxba kama ogi. kadibna waa uu iska dhaqaaqay. haddaba dambibaarihii waa uu iska fasaxay oo ma oran ha bixin. dambibaarihii waa uu soo baxay, waxa uuna toos u soo aaday dhakhtarkii dambibaarista ee wakhtigu dilku dhacay kiiska gacanta ku hayay. dambibaaruhuna waa uu fahansanaa inay tahay sababta ay u dhinteen carruurtani, dil toos ah oo weliba gacan loola tegay, jirkoodana la googooyey. haddaba waxa uu weydiiyey ma haysan agabkii xilligaa loo adeegsaday carruurta si loogu dilo, kuwaas oo dambibaarihii hore uu helay. haddaba dhakhtarku waa uu ku wareejiyey dambibaare Vladimir si caddayn looga dhiga haddii dambiilaha la qabto. dambibaarahana waxa loo sheegay in wakhtiga carruurta la helay uu si nidaamsan jirkooda u yaalay waddada tareenka oo safna la geliyey. dambibaarihii mar kale ayaa uu dib ugu noqday Vasily, waxa uuna markan saaray culays aad u weyn, aadna waa uu ugu qayliyey. haddaba Vasily waxa uu bilaabay inuu hadlo, waxa uuna yidhi waxaa jiray aniga iyo 2 nin oo kale, mid waa Slav oo waa odaygii dhintay, midka labaadna waa Yuri. haddaba saddexda iyaduba waxaanu ahayn shaqaalayaal dayactira waddada tareenka. kadib habeen annagoo sida caadiga ahayd shaqada iskaga jirnaa waxa aanu aragnay 7 carruur ah oo xadaya agabkii aanu ku shaqaynaynay. kadib walaalka Slav oo habeenka cabsanaa ayaa xanaaqay, isla markaana waxa uu weerar ku qaaday carruurtii isaga oo adeegsanaya faas. waxa uuna mid u dilay carruurtii, annaguna annagoo yaaban ayaanu daawanaynay.
kadib markii uu hadalkii dhammaystay Fasili, dambibaare Faladimir intuu si la yaab leh u eegay ayaa uu ku yidhi, aniga ma doqon ayaad imoodaysaa markaa wax kasta igu sheekaynaysid. Islaaf hadda waa uu dhintay, wakhtigaasna waxa uu ahaa oday aad u weyn, mana awoodin inuu 7 qof oo da'doodu ay tahay 15 jir inuu hal mar wada dilo. laakiin Fasili waa uu ku adkaystay. haddaba Faladimir aad ayuu u xanaaqay, Fasili ayuuna gacanta xoog u qabtay. kadib waxa uu ku qayliyey, inaad xaqiiqda ii sheegto ayaa kuu fiican. haddaba culayskii badnaa ee uu soo saaray awgeed, Fasili inta uu naxay ayuu yidhi, Nikolai ayaa og. kadib intuu dib u fariistay dambibaare Faladimir ayaa uu weydiiyey waa kuma Nikolai. Fasili isagoo wejigiisa cabsi ka muuqatay ayaa uu yidhi waxba. haddaba dambibaare Faladimir waa uu iskaga soo baxay, waxa uuna soo aaday dhanka tuulada si uu uga raadiyo qof lagu magacaabo Nikolai. haddaba waxa uu weydiiyey dadkii deganaa tuulada qof lagu magacaabo Nikolai, waxa ayna u sheegeen inuu yahay taliyaha booliiska ee tuuladan. waxa kale oo ay u sheegeen habeenkii dhacdadan dhacday maalinteedii inuu joogay tuulada aad iyo aadna u cabsanaa, isaga Fasili iyo walaalkii dhintay ee Islaafi iyo ninka madaxda u ah kooxda ka shaqaysa wadada tareenka ay aad maalinta u cabsanaayeen. haddaba dambibaare Faladimir waxa uu soo dhaqaaqay dhankii Nikolai, waa ninkii taliyaha booliiska ahaaye. waxa uuna gaari u qaatay gurigiisa, maadaama guriga Nikolai tuulada cabaar u jiray oo meel tuulada ka baxsan uu ku yaalay. haddaba waxa uu soo gaaray gurigii, kadib markii albaabka laga furay waxaa soo dhoweeyey Nikolai. haddaba dambibaare Faladimir waa uu guda galay inuu weydiiyo, waxa uuna ku yidhi markii la helay carruurta meydkooda goobta waa joogtay sax. Nikolai isaga oo degan ayaa uu yidhi haa, laakiin ka hor inta aanay jarrimadu dhicin ayaan ka safray tuulada. markii aan soo noqdayna waxa aan la kulmay arrinkan. markii uu intaas sheegay Nikolai waa uu isxanaajiyey, waxa uuna ku yidhi dambibaarihii iga bax guriga. haddaba dambibaare Faladimir waa uu uga soo baxay guriga. haddaba dambibaarihii manasan waxa uu toos u wajahay labadii nin ee kale ee loo sheegay, waa ninkii madaxda ka ah kooxda dhismaha wadada tareenka iyo walaalkii. markii uu u yimid dambibaare Faladimir, ninkii madaxda ka ah kooxda dhismaha wadada tareenka, waxa uu bilaabay inuu wax ka weydiiyey qadiyadda carruurtii la dilay. haddaba ninkii sidii qof baqaya maba uu hadlayo, waxa uuna diiday inuu wax jawaab ah xitaa siiyo haba yaraatee. intaas kadib waxa uu raadiyey ninkii walaalkii, waa walaalka ninkii madaxda ka ah dhismaha wadada tareenka, laakiin nasiib xumo waxaa loo sheegay inuu dhintay 4 cisho ka hor. haddaba dambibaare Faladimir xaaladii ayaa ku xumaatay, dambiilayaashii hortiisa ayay iska joogaan, laakiin ma hadlayaan, waxbana kama qaban karo. haddaba waxa uu go'aansaday inuu taargetkiisa ka dhigto 3 nin oo awooddiisa oo dhan uu isugu geeyo, waa Nikolai oo ah taliyaha booliiska tuuladan, Fasili iyo maamulaha kooxda dhismaha ee wadada tareenka. haddaba waxa uu ka fakaray cidda ugu horreysa ee uu wajahayo, waxa uuna ciddaa ku saleeyay inay noqoto qofka ugu shakhsiyadda jilicsan. haddaba kuma ayuu noqon doonaa qofka ugu shakhsiyadda jilicsan ee uu ka bilaabi doono wareysigiisan. muddo badan marka uu ka fakarayay arrinkaas, waxa uu soo baxday inuu yahay maamulaha dhismaha wadada tareenka, qofka ugu horreeya ee uu wajahayo. toos ayuuna u aaday. haddaba dambibaare Faladimir waa uu soo fariisiyay ninkii, waxa uuna saaray bareesha xad-daaf ah, isaga oo weydiinayay su'aaliba su'aasha ay ka adag tahay, heer uu gaaray maamulihii kooxdu inuu wax kasta bannaanka soo dhigo. waxa uuna yidhi habeenkaas markii ay saacaddu ahayd 9 PM, dadka tuulada degan oo dhanna ay ahaayeen kuwo hurda. guri kasta oo tuulada ahna nalkiisu waa uu dansanaa, ilaa hal guri mooyaane, waana guriga aan annagu ku jirnay habeenkaas. waxaana isla jooga aniga iyo walaalkay iyo Fasili iyo walaalka Fasili iyo weliba Nikolai. habeenka aad ayaanu u cabnay shantayaduba, midba midka kale waa uuna ka darnaa. waxa aanuna iskaga jirnay jawi sheeko iyo khamri cabis ah. haddaba sidii aan u joognay waxaa naga dhammaaday khamrigii aanu cabbaynay, dhalooyinkii oo dhanna waxa ay noqdeen kuwo maran oo faaruq ah. haddaba waa aanu soo baxnay, waxa aana isku waafaqnay inaanu aadno dhanka wadada tareenka, oo haddii aan aragno tareen meeshaas maraya aanu khamri ka iibsanno. haddaba waxa aanu muddo dheer taagnayn waddadii, saacadduna waxa ay ahayd 10:00 habeennimo. annagoo meesha taagan ayaanuna aragnay 7 wiil oo aad u da'yar. haddaba Nikolai aad ayuu u cabsanaa, waxa uuna qabsaday dhalinyartii mid ka mid ah, waxa uuna ku yirkeen waxa aad haysid oo dhan, haddii kale waad dhimanaysaa. wiilkii yaraa waa uu la yaabay, waxa uuna iska fujiyey ninkii, gadaal ayuuna u riixay. Nikolai mindi ayaa uu la soo baxay, waxa uuna bilaabay inuu la dhaco wiilkii yaraa. arrinkaas oo carruurtii kale fajac ku noqotay, waxa ayna isku dayeen inay cararaan, laakiin Nikolai biskoolad ayaa uu la soo baxay, waxa uuna ugu hanjabay in haddii ay isku dayaan inay cararaan oo mid kasta uu dili doono. haddaba Nikolai waxa uu nagu amray inaannu ka soo qaadanno wax kasta oo ay carruurtii sitaan, kadibna aanu dilno dhammaantood, sababtoo ah haddii aanu dayno wayna dacweynayaan. markii Nikolai intaasna amray, waxaannu fulinay amarkiisii, kadibna si aad u foolxun ayaannu u weerarnay carruurtii. waxaan u adeegsanay agabkii loogu talagalay,
inaan u adeegsano dhismaha waddada tareenka. Kadib Nikolai waxa uuna amray inaanu nadiifino masraxa uu dilku ka dhacay si aan wax caddayn ah looga helin meeshaas. Boorsooyinkoodiina waanu qaadnay waxaanu ku tuurnay meel aad u fog. Meydadkiina waxa aanu ku rasaynay waddada tareenka. Kadib ninkani marka uu qirtay arrinka, waxaa la soo qabtay Nikolai iyo Fasil oo xabsiga horey ugu jiray, waxaana la bilaabay in la maxkamadeeyo. Qadiyadaasina waqtigan waxa ay noqotay mid caan uga ah dalka Ruushka. Dadka oo dhanna dhagaha ayay u taagayeen maxkamadeynta raggaas. Maxkamadeyntooduna waxa ay socotay 8 bilood. Haddaba saddexdoodaba waxaa lagu xukumay dil. Arrinkaas oo aad uga farxiyay qoysaskii dhalay carruurta. Aad ayayna ugu qanceen xukunkaas. Haddaba xabsiga ayay ku jireen muddo aad u dheer, iyaga oo sugaya in lagu fuliyo xukunkii dilka ahaa. Laakiin 1996 qaanuunka dilka gebi ahaanba waa la laalay. Haddaba Nikolai waxa uu ku dooday in xabsiga laga saaro maadaama xukunkiisii la laalay. Dabcan waa ayna u suurta gashay oo xabsiga waa laga saaray saddexdoodiba. Haddaba Fasili waxa uu sameeyey markii uu sidaaba xabsiga uga soo baxay. Waxa uu dilay in adeerkii iyo walaalkii. Ma ahan kii dhintay, waa mid kale oo lagu magacaabo Yuri. Laakiin waalidiintii carruurta dhalay arrinkaasi waa ay la yaabeen. Aadna waa ay uga soo horjeesteen. Waxa ayna qaadeen olole ay ku dalbanayaan in mar kale maxkamadda la soo taago ragga. Dabcan waa la soo qabtay saddexdoodiba sanadkii 2001. Haddaba Nikolai iyo maamulihii waddada tareenka waxaa lagu xukumay midkiiba 10 sano oo xabsi ah, halka Fasili lagu xukumay 7 sano oo xabsi ah. Haddaba saaxiibayaal, waa mahadsantiin qisadan caawa halkaas ayay noogu eg tahay. Fiidiyowga like saara channelkana subscribe soo dhaha. Mahadsanidin saaxiibayaal.